adoo wadada maray Soomaali weyn raadi dhageyso adoo sirritaada saar Soomaali weyn raadi dhageyso adoo gaarigaada ku jiro Soomaali weyn raadi dhageyso Soomaali weyn taasi waxay ahayd qaali alladan halkaad kala socoteen waa Soomaali weyn radio iminkana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeeni warsan ee toddobaadlaha ah sidaad ka warqabtaana caabuqa corona ama cudurka corona viruska loo yaqaana waxa uu sanadkii tagay ka dilaacay wadanka Shiinaha wuxuu noqday cudur darba daafaha caalamka ku fiday waxa uu markaana keenay qalqal iyo cabsi xoog leh oo soo wajahda shucubta caalamka ku dhaqan qarnigan aynu ku jirno haddaba cudurkan sidaan ka warqabnana waa cudur saameyntiisa yeeshay baqtina dadka ka abuuray ilaa haddana la aaminsan yahay ama la garan layahay baan idhaahdee sida uu cudurkani markiisa hore ku dhashay laakiin marka intaa ka soo tagno saameynta hadda cudurkani uu leeyahay maxay tahay waxaan su-aashaan si guud u weydiinayaa oo iminka baqadka ku jira Axmed Xirsi oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo bartay culumta cilmiga bulshada waxa uu ku sugan yahay dalkan Sweden iminka ayuu qadka telefoonka si toos ah ugu jira ما صدق كلام وانا عارف مهم أنا نوصل قادان بحدينا صحفيين تا أحمد عذر كان وعذر هذا الله هذا الحيو وما له ما أنت كده بيسها وده السويدن عم كنا والله هاي يوجود هان عالم ككله جار هان يوروبية وده بدن قلبتكو أدبو في مركز لجاه الله يو مركز لجاه صوت جننا شينها أو هاي هالك ومركز عذر كأو كدلاعي هرت عذر كان هالك أدو إمن كات كنا شهاي السويدن أما قبل كات شوكتو مسوق جارت لهذا هرت وحي على هذا أنا ما استعمالنا حق نصيب كمركمات الله سبحانه موسى قدرين إنه مركا ولي سوق جارو قبل كان بستر بوستر وأنا حقيقة ما كنت فرحان هاي وأنا كحولنا هاي مركا معرتي إن وضن كإسويد مركا معرتي وسوق جاري أو إلا بقوليو اللي إحنا كو مركا معرتي أي مرة يسوق ضد كمان تمكا قاضي marka gobolka ugu iminka joogto magaalada Uumiya caasimadiisu ay tahay Soomaali badan baa ku nool marka la sheekaysto dadka Soomaalida qurba joogta halkaas waxyaabaha ay aad maaragtay walaalkii cabsida ku haya maxay tahay mase aad looga hadlaa Soomaalidu xagga cudurkan ma ka hadashaa cudurkan waa laga hadlay kulamana waa la sameeyay maadaama aan markaa ma taqaanaa maaragtay siyaasiga gobolka aan ahay qaasatan markaa maaragtay qaybtan markaa caafimaadkana maaragtay u qaabilsan waan isku dayay markaa maaragtay inaan markaa dadkii Soomaalida aan la kulmo waxaana markaa maaragtay aan u sheegay waxyaalaha loo baahan yahay inay markaa maaragtay ka fikiraan waxyaalaha loo baahan yahay markaa maaragtay aqoonta guud u samaystaan walwal markaa guud wuu jiraa waxaanu markaa ku faraxsanahay markaa maaragtay xaqiiqatan wax Soomaali ah oo waqtigan xaadirka maaragtay ku maqan wadanka dabadiisa ma jiraan taasina markaa waa walwalka ugu weynaa markaa maaragtay Soomaalidu soo gaaray laakiin dad badan markaa maaragtay oo wadankan Sweden qaasatan maaragtay Västerbotten markaa dibadaha ku maqan way jiraan oo laga walsan yahay iyo qaabkii markaa maaragtay loola hadli lahaa ama wax loogu qaban lahaa Stockholm waa meesha hadda ugu badan ee wadankan Sweden cudurkani uu hadda uu farabaan uu ku haya lafteedu oo hadda 101 qof ayaa tirakoobkii ugu dambeeyay la sheegay adigu Soomaali badan way deganto waa caasimadda wadanka lafteedu xiriir Soomaalida ma la sameeyay halka iyo qurbada jaalida degan wuxuu ahaa dad kooban baan markaa maaragtay ila soo hadlay ayagoo markaa warwarsan waan isku dayay markaa maaragtay inaan ahdo markaa maaragtay maana ku guulaysan markaa maaragtay jaaliyadihii aan markaa qayb ka mid ah hadlo laakiin qorshaha way igu jiraa in aan markaa maaragtay ilaahdo waxa loo baahan yahay inaad markaa maaragtay kulantaan oo aad ka hadashaan oo aad markaa soo bandhigtaan markaa maaragtay waxyaalaha kooban ee aqoonta loo leeyahay si dadku markaa maaragtay ay markaa u haystaan aqoon guud ahaan ayna markaa uga taxadiraan ayna uga fikiraan markaa maaragtay way jiraan noocaas ahaa
axmed talyaanigu waxaa la aaminsan yahay in uu yahay xaruntii cudurkan oga timid qaaradda badankeeda amaba usii gudbiyey gobolka cudurkan uu ka dilaacay waxaa kamid ah magaalada Milano saan ognahayna gobolka de Soomaali badan baa degan adigu ka Axmed ahaan ma jira xiriir aad la sameysay bal Soomaalida xagga degan ma jirta Soomaaliya laga sheegay cudurkan inuu haleelay cabsidii warkii iyagu hadda ahayd dadkaasi maxay yihiin noo sheegi karto waa su'aal wanaagsan weeye walaalo ikraam waa run weeye Milano oo markaa maaragtay wadanka Talyaaniga noqotay meesha maaragtay aasaaska u ah xagga ganacsiga iyo xiriirka markaa maaragtay adduunka intiisa kala ah waa run weeye markaa maaragtay inuu markaa maaragtay si aad ah maaragtay uu markay uga dhacay dawladuna isku dayayso markaa maaragtay sida ay u xakameyn lahayd haddaan markaa iraahdo markaa nasiib markaa Allah subxaanahu wa tacaala uu qadaray in markaa dad badan ay ku dhacaan laakiin wax Soomaali ah oo maaragtay la ii soo sheegay ma jiraan markaa oo ilaa hadda uu ku dhacay inkastoo walwal badan markaa Soomaali dhexdeeda uu jiro khaasatan markaa maaragtay Talyaanigu wuxuu ka mid yahay wadamada markaa Soomaalidu markaa xagga safarku aadka ah oo ay ka dhacaan markaa maaragtay Soomaalida markaa ka yimaada maaragtay Soomaaliya ee Talyaaniga yimaada kuwa wadanka degan iyo kuwa markaa maaragtay soo mara waana u sheegay markaa maaragtay inaan markaa maaragtay iraahdo waxa la kulmo warbixin badan hala siiyo aqoonba hala siiyo marka hana la ilaaliyo dabcan saa hadalku u sheegtay weeyaan Soomaaliya iyo Talyaaniga xiriir dhinacyo badan baa ka dhaxeeyay xagga socodka waxa ugu badnaado Soomaali badan baa usii kala gooshta Soomaaliya iyo wadankaas laakiin waxaad moodaa in aanay hadda diyaar garow guud ahaan Soomaaliya cudurkaas marka si yar oo kooban looga hadla mooyaane aanay jirin dabcan xaggii dhaqaalaha iyo awoodii oo ay u sabab tahay marka sidee baad isleedahay Soomaaliya ilaahay uma keeno cudurkan bay ugu diyaar garoobi kartaa iyadoo kaashanaysa hay'adaha deeqa bixiyaasha runtii markaa maaragtay warka xaggayga soo gaaray maraan isku dayay inaan markaa maaragtay xiriir la sameeyo oo aan ku guulaysan markaa maaragtay mas-uuliyiin xagga dawladda ah laakiin dadka ka dhow markaa waxaa la maaragtay wax maanta ay dawladdu ka shirtay oo ay soo saartay markaa go'aamo ah ama ay markaa maaragtay u diyaar garow markaa ay ma jiraan ama ay la sameeyeen xiriiro markaa xagga caafimaadka adduunka ah aad baan uga xumahay waa maaragtay waddan aad markaa maaragtay u liita ayaan markaa maaragtay ayaanu ka nimid xagga dhaqaale iyo xagga siyaasad markaa maaragtay oo aan runtii aan xoogga u saaray ilaa hadda aanan markaa ka fadhiisan doonin inaan markaa maaragtay aan maaragtay aan ku qasbo aana markaa maaragtay anoo isticmaalaya awoodayda kale ee markaa maaragtay siyaasadeed iyo xiriirba waddankan Sweden si markaa Soomaaliya qaabkii loo caawin lahaa warbixin loo siin lahaa markaa maaragtay waana ka xumahay markaa waxaana aan ka codsanayaa oo aan markaa maaragtay ka baryaa dawladdu inay markaa arrinkani markaa maaragtay ay u feejignaato xoogana saarto dadkana markaa maaragtay ay wacyigeliyaan waa tahay Axmed aad baad u mahadsan tahay su-aasha u dambeysa maxaad dadka Soomaaliyeed maanta fursadan u heleen inay ku dhageystaan aad soo gudbin lahayd marka cudurkan hadda aanu ka hadlayno talada caafimaad ee adigu aad siin lahayd bulshadu maxay tahay horta waxa ugu muhiimsan waxa way walaalayaal marka maaragtay cudurkan marka maaragtay dilataan warbixinta guud ee taala meel walba ayaa laga heli karaa xagga caafimaadka goobaha caafimaadka oo kale inaad markaa maaragtay caruurtii markaa aad ka warqabtaan tegaya ama iskuulada tegaya ama dibadda u baxaya iskuna daydaan markaa maaragtay waxyaalaha loo baahanya markaad guriga soo gashaan aad markaa gacmaha dhaqataan inaad markaa maaragtay muxuu ahaay aad iska ilaalisaan markaad dibad joogtaanna aad iska ilaalisaan markaa maaragtay kulamada badan ee dadku markaa maaragtay meel ku wada kulmi karaan oo kale ah inaad markaa caruurtii marka aadin maaragtay aad ka taxadirtaan waydan marnaba u ogol markaa caruurta inay markaa si ayagoo markaa u fasixina markaa dibadda iska soo wareegaan oo hadhow iska soo galaan marka Soomaalidu waxaa markaa ayaan leeyahay walaalayaal markaa maaragtay si fiican ha loo diyaar garoobo ha looga warqabo hana markaa maaragtay hala raadsado markaa wixii aqoon ah iyo warbixin ah ee waddanka taala
waa tahay axmed aad baad u mahadsan tahay sida aad wacyigelinta aad u siisay bulshada soomaalida ku dhageysanaysa waana rajeynaya in wacyigelintaasi ay qaadan doonto dhegeystayaal barnaamijkeenina wuxuu ahaa warsan oo maantaanu ku wareysanaynay aqoon-yahan Ahmed Xirsi oo ku sugan magaalada Umeå ee wadankan Sweden waxaanu ka wareysanaynay cudurkan caabuqa corona ah ee dalka Shiinaha ka dilaacay iyo sida degdega leh uu caalamka ugu faafay iyo dabcan sida ay bulshada Soomaaliyeed ay arinkaasi ku baraarugsanaan karto mar kale mahadsanid Axmed aada mudan ikraam waa mahadsantihiin bishaaro bilkhayr dhaha adiinkuna waxa warada cusub ee Malsam oo dhawaan wadanka Sweden laga hergeliyay ma tahay oo ma doonaysa qof eheladiisa lacag u diro haddaba xawaalada Malsam ayaa diyaar kuula ah waxaadna ku diri kartaa qaab online ah waxaa sidoo kale ay tahay xawaalada Malsam xawaalad haysata sharciyada saxda ah ee lacagta lagu diro haddii ay hal lahayd swishka iyo ID-ga haddaba si aad eheladaada meel kastoo caalamka ay ka joogaan aad u gaarto lacagaha aad u dirtaan waxaad kala xiriiri kartaan telefoonada eber ama malsam.se